wardegdego hadda soo dhacay dowladda Turkiga ayaa si official u taageertay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale mucaaradkii ka soo horjeeday dowladda gebi ahaanba guri ku dumisay hadaba say wuxuu jiraa qoraalkay hadda soo qoreen dowladda Turkiga khaasatan safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga isagoo ku amaanaya sidoo kalena ku meeshin gareeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud soo dhaweynta u sameeyay hadalka ay dowladda Turkiga runtii soo qortay wuxuu dhammaan ka xareysiyay sidoo kalena dhiiga ku kiciyay dhammaan mucaaradkii oo sheegay in gebi ahaanba Turkigu ay qalalaasa ka wadaan Soomaaliya oo aan dooninba nabadda sala socotaan in madaxweynuhu hadalkiisa uu sheegay ilaa 27 haduu Ilaahayna gaarsiiyo inuu xukunka sii hayn doono arintaas runtii ilaa shalay ilaa xalay gebi ahaanba wadanka buuq ka dhalisay laakiin Turkiga ayaa cadeeyay inuu taageero buuxo u hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena hadalkiisa ahaa ilaa 27 uu ku taageersan yahay waxa ay sheegay in gebi ahaanba madaxweynaha runtii aad iyo aad ugu faraxsan yihiin joogitaankiisa sidoo kale howlaha uu sii wado qarankana ay ku taageereen salaam